qarax dhimasho iyo dhaawac sababay isla markaana lala eegtay ciidan ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wararka ka imaanaya halka lagu magacaabo Al-Naciim oo ah warshad samaysa biyaha caafiga loo yaqaano ayuuna agteeda ka dhacay. halkaas waxaa ku yaallay sida wararku ay xaqiijinayaan jagboyntii misna bar control oo gaadiidka laga hubiyo oo la tilmaamay inay u yaalaan ciidamada qaybahooda kala duwan si gaar ah kuwa ilaaliya ammaanka caasimadda. waxaana la tilmaamay in halkaas ay ku sugan yihiin ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo gaadiidka qaybihiisa kala duwan gaar ahaan kuwa ka yimaada dhinaca degmada Kaxda ku hubiya iyo kuwa ka taga X control Afgooye ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. jagboontigaas ayaana la tilmaamay in mootada dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan feekonta ama bajaajta aaniraade ay halkaasi gaartay misna tagtay isla markaana ciidamo ku sugnaa bartaasi control oo qaarkood la sheegay inay ku jireen nasiino halkaasina uu ku qarxay qaraxa. tiradan askar gaaraysa 5 ruux ayaana la sheegay in dhaawacyo xoogan ay soo gaareen oo qaarkood luguhu ay ka jarmeen qaarkoodna ay gacmaha ka jarmeen halka kuwa kalena ay halkaasi ku baaba'een. sawirada iyo muuqaalada halkaas laga helayo ayaana tilmaamaya iyaga oo waliba askarta goobta ku sugnayd qaarkood lugahooda halkaas lagu arkayo halka kuwa kalena gacmahooda halkaas lagu arkayo. kuwa dhaawac culus uu soo gaarayna loo qaaday xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wadadan waa wadada isku xirta degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Banaadir si gaar ah xaafadaha kala duwan ee degmada Dharkiinley iyadoona ay dhinaca degmada Kaxda aado. waxaana in badan jagboyntigan misna bartan control lagu hubiyaa gaadiidka qaybihiisa kala duwan haba ugu badnaatee gawaarida raaxada ah ee ka yimaada gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana soo mara degmada Kaxda ee gobolka Banaadir si gaar ah xaafadda lagu magacaabo ama dhinaca iyo sidoo kale masaajidka weyn ee Kaxda. iyadoo waliba isgoyskan ama wadadan ay ahayd wado aad u mashquul badan waxaana la ogeyn ilaa iyo hadda halka ay soo martay mootadan iyo halka ay ka timid intaba. warar dheeraad ah oo intaasi ka baxsan laamaha ammaanka lama helin laakiin saacadaha soo socda ayaa la filayaa in faahfaahin rasmi ah ay ka bixiyaan arrintan misna qaraxan oo la tilmaamay in uu fuliyay nin la sheegay in uu mootadaasi watay kana tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. inta badan caasimadda waa ay ka badqabtay maalmihii ugu dambeeyay qaraxyada noocan oo kala ah ee lagu fuliyo mootooyinka noocyada kala duwan haba ugu badnaatee bajaajta iyo kuwa feekonta loo yaqaano oo caasimadda aad ugu badan. haddaba dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya iyo saraakiisha laamaha ammaankaba sida qaraxan uu ku soo galay iyo halka uu ka yimid iyadoona ay socdaan baaritaan xoogan oo lagu sameynayo kaamirooyinka halkaasi ka agdhawaa ee CCTV-ga loo yaqaano ama kaamirooyinka wax basaasa. iyadoona dhawaan la filayo in warbaahinta la isugu yeero xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed si faahfaahin looga siiyo qaraxan iyadoo sidoo kale war laga soo saari karo arrintan maadaama ciidan halkaas ku sugnaa oo qaar ku jireen nasiino qaarkoodna shaqo ku jiray halkaasi ku baaba'een misna ku laadeen. wixii ku soo kordha barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal.